kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada fariin aan ugu magac daray baroordiiq oo aan ugu baroordiiqayno walaasheen Allah u naxariistay Hodan Naaleeye oo ahayd gabar Soomaaliyeed oo kaalin mug leh ugu jirtay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Hodan Naaleeye geerideeda waxaa ka gilgishay guud ahaan bulshada qeybaheeda kala duwan, waayo waxay ahayd qof sawir wanaagsan ka bixinaya Soomaali oo idil. Waxay ahayd gabar ku faanta Soomaalinimada, waxay ahayd qof u taagan qaranka Soomaaliya. haddaba fariintan baroordiiq oo aan idin soo diyaariyay anigoo Axmed Xasan Ramaas isla markaana halkaan idin kaga soo jeedinaya ayaa ah fariin qiiraysan. haddaba waxaan rajaynayaa in bulshada Soomaaliyeed si qiiraysan ay u daawadaan una dhageystaan. fariinta baroordiiq waxay ku bilaabanaysaa sida tan: inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waan shigshigayaa markaan isku dayo inaan muujiyo tiiraanyadayda ku aadan geeridaada Hodanay. 3 cisho kadib weli waxay ilmada ku dareeraysaa dhabanadayda. dadku markay afka furteen oo ay ku baroorteen durba markii ay maqleen geeridaada, anigu wax hadal ah wuu iga soo bixi waayay. si anigoo maqana jooga ah ayay indhuhu i taagmeen. barihii bulshada ayaan eegay, halkaashiina culay ayaa barooranaya. sheekh Kinyaawi ayaa tacsiyeynaya. sheekh Saciid Raage ayaa ilmeynaya. farxiye cabsiye ayaa caloliyow la ilmeynaysa. sahra iidla nuur ayaa tabinaysa dareenka tiiraanyada leh ee bulshada. sawiradaada ayaa meel kasta la isku weedaarsanaya adigoo lagu tacsiyeynayo. Suhaybo Badqas ayaa leh booskii Hodanay aad banaysay cid kale oo buuxin karta ma muuqato. Hodanay intaas oo dad oo ku barooranaya, anigu ma awoodin inaan bishimadayda dhaqaajiyo ama ilmo iga soo qubato, waayo itaalkii oo idil ayaa iga idlaaday. 3 cisho kadib ayaan erayadan ku soo tabinayaa. Hodanay waan ku jecleen haddii aan nahay Soomaali weyn, Allah se inaga ka jeclaaday. Hodanay naxariistii jannad Allah ka waraabiyo adiga iyo seegaaga iyo inta kula geeriyootay. balse Hodanay waxaan kugu soo xasuusan doonaa dhoola cadeyntaada iyo farxadaada, dad jaceelkaaga iyo dal jaceelkaaga. waxaad ahayd gabar Soomaaliyeed oo aan ugu faano bulshooyinka kale. Hi guys, assalaamu calaykum. Hodanay ayaa kale oo ina dhahaya ayaa inagu soo booqanaya xamar oo dhahaya xamar cadeey, ayaa booqanaya Garoobi oo soo bandhigaya buurihii Goolis, ayaa booqanaya Laascaanood oo geel jiraha waqti la qaadanaya. And it's so beautiful. Look at this. afkayga ma garanaysid af Ingiriis aan ku hadlayaa de. waxaan ku baraya adii Soomaali barana Ingiriis ku baraya geel jirka. Keen hadda kula hadlay Soomaali hadda Ingiriis dadka qurbo jooga aan hadlayaa de. ha waxaan soo doonay de nimcada wadankeena. no malaha dhulkeena wanaagsan wariye danaga taarada duubatay xagga igede kaalay geele dad kale wala sheekaysanaysaa aniga xagga igu xagga geelka kaalay tus geelaasa ku dhigay shishe haye xagge no ani kuma raacay meel shishe waxa geelana wata aabaha miya wada ya aabaha miya odagani ha way ma adeerka okay aabaha miya ma jooga way aabaha ma jooga okay maxaa dadka qurbo u sheegaysaa geelkan oo nimcadan ma sha Allah ku tishid marabta inaad taariib gashid ma taariibina xagga igade taariib waxa nimcada Ilaahay iska dhex jooga geeleygaas wata lisaya haye waka weydinka iska kii dhex yimid soconaysiin waa run nimcada way maayidi waa run ma sha Allah kasaara dunida oo dhan sayga aan ka doorto sabanada araga ayaa odayaasha u dalbaya sararta geela, ayaa Hodanay caruurta u dalbaya shaah, ayaa Hodanay ubadka u dhisaya goob waxbarasho, ayaa Hodanay hablaha Soomaaliyeed u qabanaya barnaamijka sheeko iyo shaah, ayaa dhiirigelinaya Hodanay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka ka bilaabay hal abuur ganacsi, ayaa la farxaya Hodanay fanaaniinta Soomaaliyeed, ayaa soo bandhigaya Hodanay bilicdii dalka Soomaaliya ee maalin kasta aad tabin jirtay, ayaa casuumaad u sameynaya Hodanay hooyooyinka Soomaaliyeed ee hidaha iyo dhaqanka ku canbaxay. Hodanay waxaad ahayd xidigta qurbo joogta, haddii adigu aad naga dhuumatay ayaa dhammaystiraya kaalintaada Hodanay. shalay mid baa diinta igu daleeceysay, maantana mid kale ayaa afka igu caayayso. Hodanay ayaa kale oo sida inoogu dul qaadanaya. Hodanay ayaa dhiirigelinaya xaafidul Qur'aanka. Hodanay ayaa ka fikiraya mustaqbalka ubadka yaryar.
ayaa kala hodanay ina baraya inaan ka tagno dhaxal wanaagsan. hodanay waxaad ahayd dhiigayga iyo dheecaankayga. waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waa ereyadii aan ugu jeclaa ee aad ku hadasho. naag iska dhig waa ereyadii ugu murtida badnaa ee aad u dhaafto inamada yaryar. hodanay ayaa qurba joogta ku dhiirigelinaya gadaasha in ay dib ugu soo laabtaan dhulkii hooyo. hodanay waan ku xasuusan doonaa abid. waxaan filaynaa inay soo bixi doonaan boqolaal hodan oo halgankaaga dhammaystira. hodanay naxariistii janno allaha kaa waraabiyo. annagana gadaasha allahna ma fidneeyo. kulankeenana jannatul firdaws allaha ka dhigo. aamiin aamiin aamiin.